Salaamu calaykum. Shaki kuma jiro in marxaladda carruurnimada ka mid tahay marxaladaha ugu wanaagsan ee aadanuhu soo maro. Ma lahan xisaab ama mas'uuliyad farxadda u diida. Kaliya waa cun oo cayaar. Laakiin suuragal ma ahan in marxaladaasi sii waarto. Koritaanka saxda ah ma aha kan jirka oo kaliya, balse waa kan caqliguna uu la koro da'da qofka. Barbaarinta iyo edbinta kuma joogsato tan carruurnimada ee waalidka laga rabo, balse waa waajib in qofku uu si joogto ah naftiisa u siiyo duruus iyo edbin. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa 10 qodob oo muhiim ah oo qofkii raaca ka caawin kara inuu noqdo qof hanan kara naftiisa, isxakameyn kara, jawaab celin caafimaad qabtana bixin kara. Aragtidaadu ha noqoto mid waaqaca aad joogto la jaan qaadaysa. Carruurnimadu waxay caan ku tahay riyo maalmeed. Ilmaha u sawirta nolol ubax kaliya la arkayo. Ilmo kasta waxa uu si farxad leh ula nool yahay duni wada qiyaali ah oo isku arko inuu yahay haliyey iyo geesi aan hortii la arag mid u dhigmo, ama uu u macaamilo sida amiirada dunida uu sawirayo filim carruureedka Disney. Laakiin runtu taas aad ay uga fog tahay. Sidaa awgeed waxaa qasab ah in aragtida aad nolosha ku eegaysaa ay noqoto mid waaqaca iyo runta hortaada taala ka duulaya. Cidi kaama doonayso inaad faraha ka qaado himiladaada iyo riyadaada, laakiin waxaad ogaataa inaad joogto waqtigii aad agaha si buuxda dhulka ula heli lahayd, bilaabi lahaydna xaqiijinteeda, adiga oo duruufahaada runta ah og. Dantaada iyo madaxaaga midna lagama boodo. Muuqaalka jirkaagu waa muhiim. Xilliga carruurta danka ma gashid waxaad ku labisanayso, kaliya waxaa muhiim ku ah inaad faraxsan tahay. Laakiin marka aad jaamacadda gasho ama shaqo tagto, waxaa qasab ah in dharka aad xiranayso ay noqdaan kuwo kuu qalma. Haddii kale dadka ayaa kuu malayn doona in aad tahay ruux aan weli caqli ahaan bulshada soo dhexgeli karin. Waxaanad arki dad badan oo aan kuuba arkayn inaad u qalanto mustawaha runta ah ee aad nolosha bulshada ku leedahay. Naftaada ku kalsoonow. Waxa aad ku dadaashaa in naftaada aad ku beerto kalsooni, shakhsiyadaada intii suuragal ahna aad ku qanacdo. Cidna ma jecla mana danayso ruux walaac badan oo aan lahayn hal adeeg. In aad noqoto ruux naftiisa ku kalsoon waxa aad ku kasbanaysaa dadka iyo in iyaguna kugu kalsoonaadaan. Laakiin ogow in ay kala duwan yihiin naftaada oo aad ku kalsoonaato iyo indha adeeg akhlaaqdaada dhaawacaya. Baro sida loo doodo. In qofku dooda u bisil yahay waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah in aanu qaylin, in aanu caroon inta doodu socoto, iyo inuu naftiisa xakameyn karo oo erey kasta inta aanu afkiisa ka soo bixin uu garan karo saamaynta taban iyo midda togan ay yeelan karto. Tusaale ahaan, in aanu ereyo xun oo aflagaada ah ama meelka dhaca iskaga dhawaaqin. Qofka bisil waa inuu awood u leeyahay in dooda uu ku jiro uu maamulo si degan oo ilbaxnimo sare ka muuqato. In aanu wax kasta oo uu maqlay isaga doodin oo erey kasta uu noqdo mid uu xujo iyo caddayn u hayo. Sidoo kale, aragtida uu ku adkaysanayaa ay noqoto mid cilmi ku fadhida. Waa inuu noqdaa qof maskax furan oo awood u leh inuu aqbalo aragtida dadka kale haddii uu ku arko run iyo saxnaan. Shucuurtaada xakamee. Sifooyinka shakhsiga ah waxaa ugu muhiimsan in qofku uu noqdo qof awood u leh inuu jawaab celintiisa xakameyn karo. Iska jir in caradu kaa xog badato oo ay dibadda soo dhigto shucuurtaada runta ah. Ku dadaal in jawaab celintaadu noqoto mid miisaaman oo u qalanta munaasabadda iyo qofka aad la hadlayso. Labadanba iska jir, caayda iyo aflagaadada, gaar ahaan marka qofka aad la doodaysaa uu isku dayo inuu sanka kaa taabto, macnaha kaa caraysiiyo, ama wax uu og yahay in aad ka xumaanayso uu si bareer ah u sameeyo. Ilbaxnimadu waa inaad qofka si degan ugu sheegto waxa aad diidan tahay ama kaa caraysiinaya. Haddii uu ku sii socdana si dhib yar uga agfogow, hana siinin fursad dambe oo arrintaasi ku cabiro. Jidka noloshaadu marayso, adigu taladeeda gacanta ku hay. Waxaa waajib ah in aad noqoto ruux awood u leh inuu qaato go'aamada naftiisa quseeya. Qofka bisil waa kan aan ka baqan go'aanka uu qaato. Waxaa ka dhalan kara ama natiijada ka imaan karta. Kaliya si fiican u fikir. Dhammaan talooyinka lagu siiyo iyo kuwa maankaaga ku jira
si fiican u eeg mid midna u qiimee ilaa ay kuu suurto gasho inaad kala dhex baxdo midka aad isleedahay way ugu habboon tahay inaad doorato. waa arrin caadi ah in qoyskaaga, saaxiibadaada iyo ciddii aad doonto kala tashato, laakiin waa inaad niyadda ku haysaa in go'aanka ugu dambeeya ee aad qaadanayso uu noqdo kan naftaada ku qanacsan tahay inuu kii saxdii yahay, xitaa haddii uu ka hor imaanayo qaar ka mid ah talooyinkii muhiimka ahaa ee lagu siiyey. waayo ugu dambaynta go'aankani adiga ayuunbuu ku qusaynayaa, dhib iyo dheef wixii ka dhashaba. ha ka baqan inaad wajahdo mushkiladahaaga. qofka bisil waa kan aan ka warwareegin kana baxsan mas-uuliyadaha saaran iyo mushkiladaha shakhsiga ah ee haysta, balse ku wajaha hal adayg, si fiicanna u garan kara sida ugu habboon ee uu xal maangal ah ugu heli karo. waxaa fiican in qofku uu qirto ceebihiisa oo dhan ka hor inta aanay cid kale u sheegin ceebtiisa. ogow, ma jiro qof aan ceeb lahayn, laakiin waxaa jira qof garanaya sida ay tahay inuu u wajaho isagana caabiyo, iyo qof iska daaya intay ceebtaasi sii naaxayso oo ay noqonayso boog madow oo ku taala shakhsiyaddiisa. qof kastaa labadaas ayuu kala doortaa. qoyskaaga waa muhiim. barigii hore labadaada waalid ayaa ku siin jiray wax kasta oo aad u baahato oo daryeel iyo gacan qabasho ah, waana hubaal intii ay awood u leeyihiin inay ku garab taagnaan doonaan. laakiin miyaanan kula ahayn in la gaaray waqtigii aad adigu mas-uuliyadahaaga dusha u ridan lahayd? macnuhu ma ahan in lagaa doonayo inaad maamusho ganacsiga iyo shaqada aabbaha. sidoo kale ujeeddadu ma ahan in markiiba lagaa rabo inaad adigu la wareegto mas-uuliyaddii biilinta qoyska, laakiin waa inaad marka hore ugu yaraan isku daydaa inaad mushkiladaha qoyska u dhuundaloosha xal u raadintooda qayb ka ahaataa. mas-uuliyadahaaga oo aad la wareegto waxaa ka bilaabaysaa in marka hore erayso ku tiirsanaanta dhinaca qarashaadka ee waalidka, cafiska, nacaybka, caloolxumida iyo inaad argoosi u orodaa kama mid ahan dabeecadaha lagu yaqaano shakhsiga adag. qofka nolosha u bisili waa qof si talmoon u fikira, awood u leh inuu cafiyo qaladaadka dadka ku xeeran kaga yimaada, aqbalana raaligelinta cidda ku gafta. qofka nolosha u bisil waa kan aan ku fikirin argoosiga, xumaantana aan xumaan kaga jawaabin. haddii aad dabeecaddaa baratana waxaa hubaal ah inaad noqonayso qof aan nafsi ahaan u xasiloonayn, mar kastana maskaxdiisu ka mashquulsan tahay argoosi iyo arrimo caqabad ku noqonaya horusocodkiisa. ha noqon danayste. ku dadaal inaad dadka gacan qabato, khayr iyo samaanna u rajayso intii aad awoodo. qofka oo naftiisa uun wanaag kasta la doono waxay astaan u tahay inuu yahay qof aan xasiloonayn, ammaan darro nafsaani ahna dareemaya. waxay ka mid tahay dabeecadaha lagu yaqaano dadka aan fikir ahaan bislayn. deeqsinimada iyo waxbixinta kuma koobna dhinaca hantida, balse waxaa jira waxbixin dareen ah oo aan la taaban karin oo ka badan tan la taaban karo. adiga oo ku dadaala inaad farxad geliso dadka kugu xeeran ayaa ka mid ah deeqsinimada ugu habboon ee aad samayn karto. haddaba saaxiibada kanaalka ilcuda tiyub, 10kan qodob midkee ayaad adigu haddaba leedahay? waxaad noogu soo qortaa dhanka hoose ee kommentiga. intaas ha inoo jooga mawduuceena maanta. wasalaamu calaykum.